magaaladani Kalabeed oo qiyaastii 15 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley isla markaana ay ku nool yihiin kumanaan qoys ayaa dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi laga deyrinaya xaaladooda nololeed oo waqti xaadirkan ay ku jiraan xaaladii ugu darneed ee soo wajahda dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi Kalabeed. waxaan ka codsanaynaa dawladda waxa danyarta waxa ma lihin xoolo ma lihin aqalama galo saaka dadka faqiirka ah iska degan magaalada iska danyarahan nahay waxaan ka codsanaynaa dawladda inay ogaadaan waxna naga siiyaan qoyskan halkan degani waxa ku nool 3 qof oo dhimira hooyo iyo 2 gabdhood oo ay dhashay marka qoysku waa 4 qof 3 qof way waalan yihiin hal qof baa ka fiyow halkii qofna ayaan dhawid accident galay marka wax adduuna dameer bay haystay cid kale oo u maqan oo dawladda Soomaaliland ee ay مسؤولك أي كهوس نولهن أنا أهين متشو صدق دوا وتاسو إنه هو كسيد الأوضاع مركا أو بريس هو وصور هذين واحد دولة حاجة دولة واحد كوجي متشتو لكن بالشدة كلابيد أي لأنه لهنا وصورني مجالة أيان وصورني وصوباهن تمر ما دامو دت كنا أيو بنيهن دت كان كلابيدنا أيضا يرو بدينهن مركا دولة ده واحد قاصنا إن يبونا أي gacanta ku qabtaan oo dadkeed way ilowday dadka taagta yar la Kalabeed ku nool dadkaasi waxa ka muuqda jileecto waa dad aad u liito moogta markaasi Soomaaliland Kalabeed waa sidii markii la qaxay lagu soo noqday sida ay ahaydun maalin kasta waxa arkaysaa reebel baa loo baahanaya maalin kasta waxa arkaysaa reebel baa wax loo ururinaya waayo dawladii hore udub way ogeyd moogtay wixii danyara oo kastamka ayaa laga siin jiray 10,000 iyo 15,000 iyo waxyaabo ay noloshooda ku daryeelaan laakiin dawladani totally way ilowday isduwaha samafalka madaxtooyada iyo maamulka magaalada Kalabeed oo dhinacooda Hon Cable TV wax ka weydiiyay ayaa sheegay in dadkani danyarta ay ku tabaalaysan gudaha magaalada Kalabeed ay ugu sii liitaan ilaa 40 qoys iyo bulsho fara badan oo ku tabaalaysan Kalabeed ay jiraan adoo ugu yaraan 40 qoys oo faramadha baa jooga dad u fara badan oo 100 qoys kor u dhaafay inkastoo imkaan gacanta ku hayno 40 qoys aan soo register karayno jilicsan sida aad ku arkaysaan sawirka dadkaas oo u baahan tagaabeen iyo taakulo waxaan miidiyaha u marinaynaa in dadkaasi sidii loo gargaari lahaa falgood loo qabto qaarkoodna had iyo jeer waxa laga quudin jiray halkan kastamka magaaladani Kalabeed ay ka soo yeelayso qayla dhaanto ayaa waxa ku yaala kastamka labaad ee ugu weyn kastamada Soomaaliland kaasi oo lagu cashuuro qaadka oo dakhliga dawladda ka soo gala maalintii uu dhan yahay ku dhawaad ilaa 600 oo milyan sida uu 3 bilood horteed sheegay maamulka ku xigeenkii hore ee kastamka Kalabeed maantadan joogno 550 milyan sidoo waliba dheeraad difference u dhaxeeyo wal arkaysaa Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley.